loolanka doorashada Puntland ayaa maraya meeshii ugu dambeysay xilli magaalada Garowe la geeyay makiinad samaysa lacag faaliso ah waxana mashruucan horboodaya Xasan Dani oo madaxa ololaha madaxweyne Dani ahna walaalkii sidaan xogta ku helnay habeenkii Khamiistii la soo dhaafay ayaa makiinadan samaysa dollarka faalisada ah la geeyay magaalada Garowe sidaan ku helnay xogo sirdoon oo si weyn loogu kalsoon yahay dollarka ay samayso makiinadan ayaan laga garan karin dollarka rasmiga ah makiinadan oo intii aan la soo gaarsiin guri ku yaal gudaha Garowe ayaa lagu soo tijaabiyay magaalada Dubai halkaas oo uu ka keensaday Saciid Cabdullaahi Dani dhinaca kalena filla Soomaaliya ayaa qoys ka taagan doorashada Puntland xilli hogaamiyaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani uu ku dhow yahay inuu mar kale qaato xukunka Puntland taasoo filla Soomaaliya ku ah geeri siyaasadeed sidoo kale hogaamiyaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa barida dhulka ugu dhuftay beelaha dhulbahante kadib markii uu 17 xildhibaan ka xushay barxadda magaalada Garowe isla markaana uu dhaafiyay jagadii gudoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka Puntland oo ay horay u haysteen beelaha dhulbahante sidoo kale hogaamiye ku-xigeenka maamulka Puntland Axmed Karaash oo taagan ayuu Dani iska qortay matalaadii reerkiisa iyadoo Axmed Karaash si xun loogu baxdilay Garowe lagana soo qaaday saqiir siyaasadeed oo aan waxba ka galin matalaada reerkiisa sidoo kale siyaasadda Saciid Cabdullaahi Dani oo labadii sano ee u dambeysay ku saleysnayd doorasho boob iyo beliiqo ah ayaa hadda u muuqda mid u qoysgooyay musharaxiinta jagada kula tartamaysay taasoo keentay inay musharaxiinta madaxweynaha Puntland u midoobaan sidii ay Dani iyo kooxdiisa u dhaafin lahaayeen talada Puntland doorashada hogaamiyaha maamulka Puntland ayaa la qaban doonaa maalinta berri ah musharaxiin badan ayaa u ordaya kursiga madaxweynaha Puntland waxana la soo warinayaa inay xoogan tahay fursadda uu mar kale ku soo laaban karo hogaamiyaha hadda kursiga ku fadhiya ee Puntland Saciid Cabdullaahi Dani sidoo kale dawladda federaalka Soomaaliya oo muddo dheer uu dagaal siyaasadeed xoogan kala dhaxeeyay Saciid Cabdullaahi Dani ayaa hadda weyday fursad ay ku farageliso doorashada Puntland waxaana muuqata inay filla Soomaaliya hadda isaga hartay doorashada Puntland iyo damaceedii ahaa inay dhaafiso xukunka deegaanada Puntland Saciid Cabdullaahi Dani sidoo kale doorashada Puntland ayaa hadda ku socota sida uu rabo hogaamiyaha maamulka Puntland Dani taasoo ku siinaysa inuu Dani leeyahay rajo fiican walow aan la sahashan karin iskaashiga musharaxiinta mucaaradka Puntland oo u midoobay sidii ay xukunka u dhaafin lahaayeen Saciid Cabdullaahi Dani taasoo jihada doorashada Puntland dhinac kale u leexin karta sidoo kale wali aad looma saadaalin karo doorashada Puntland waxaana ay musharaxiinta u ordaya hogaanka madaxtinimada Puntland ay maanta jeediyeen khudbadihii waxaana idiin soo gudbin doonaa saacadaha nagu soo aadan saadaashii ugu dambeysay ee doorashada Puntland oo ku dhisan xukunta hoose ah kana madax bannaan aqalada ololaha musharaxiinta madaxweynaha Puntland intaas ayaan ku soo koobaynaa wararkii ugu dambeeyay ee doorashada Puntland oo maraysa meel xasaasiya